maanta maxkamaddu maanta waxay xukuntay oo ay ku xukuntay dil toogasho ah 5 eedaysane oo kufsaday dambi kusoodareed ku galay magaalada Gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 22-kii bishan 3aad 2018 haddaba eedaysanayaasha dilka toogashada ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ayagoo qiraal ku ah waxay kala yihiin sida kow eedaysanaha koowaad Cabdirasaaq Axmed Cilmi in Zaynab Cabdullaahi ku dhashay degan Gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogasho eedaysanaha labaad Cabdirasaaq Cali Cabdi in Nasra Cali 18 jir ku dhashay degan Gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogasho Yusuf Cabdullaahi Xirsi in Shukri Cabbaas 18 sano jir ku dhashay degan waxay ku xukuntay dil toogasho eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre in Zaynab Daar 19 jir degan Gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogasho eedaysanaha shanaad Cusmaan Maxamed Cabdullaahi in Saciidiye Maxamed 18 jir ku dhashay degan Gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogasho maxkamadda xukunkeeda waxay cuskatay qiraalka ay qiraal ku ahaayeen inay kufsadeen iyo suuratul Maa'ida aayadda 33 iyo xeerarka kufsiga ee dowladda Puntland fariinta waxaan u farayaa dhalinyarada meel kasta ay ka joogaan Puntland inay ka waantoobaan kufsiga hadda iyo wixii ka dambeeyo ciidanka amniga xafiiska xeerlaalinta garsoorka waxaa ka go'an in si toos ah loola dagaalo ciddii geysata kufsina ay mudanayso dil toogasho waalidka waxaan leenahay carruurteena cashaa haddaa cashan weydaan waa la tooganayaa kii wax kufsada gabdhahana waxaan leenahay is ilaaliya oo isxafida oo meelaha khatarta ah hamarin insha Allah ta'ala waa cirib tari doonaa dambiga kufsiga ah Puntland وكعرب تريدون إن شاء الله تعالى وبالله